afhayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan oo shir jaraa'id qabtay. Erdogan oo telefoonka kula hadlay Trump markab marayay marinbiyoodka Hormuz oo saakay mar kale nagta laga saaray. iyo Iiraan oo beenisay weerarkii dhawaan lagu qaaday madaxa maamulka Kurdistaanta Ciraaq ee dalkaasi Ciraaq oo xafiisyadiisii dhawaan diyaarada drones lagu weeraray. haddaba talow yaa weeraray wararkaas oo faahfaahsan ayaa soo kordhay intaynu kala maqnayn barnaamijka ayaynu ku soo qaadan doonaa. inta aan ku jirnana waxay warar soo kordha waan idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya iyo geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi. waa shirkadda lagu magacaabay Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road. hadda ka hor qiimo dhibidii aan soo celinay 2 bilood ahayd walaalo badan baa ka faa'iideystay oo dal iyo dibadba jooga. haddana mar labaad waan soo celinay. waxaan ugu baaqahayaa bulshada Soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa joogta inay ka faa'iideystaan adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud. waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya, ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira. naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka, dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya. haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tag. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay. maanta waa Talaado, taariikhduna waxay ku beegatahay 18 bisha 8 2026. wararka soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijkan qaybo muhiima kaga soo qaadan doonaa. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa saakay waxaa shir jaraa'id qabtay afhayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan. haddaba dhowr arrimood oo la isla dhex marayay 48 saac ee lasoo dhaafay. waxaa ugu weynaa Trump oo yidhi waa inay isdhiibtaa Iiraan oo calan cad qaadataa. waa saas. waxaa sidoo kale lagu soo beegayaa shirarkan jaraa'id Trump hadalkiisa iyo hadalkan afhayeenka ilaalada kacaanka Iiraan waxaa dhammaaday 60 maalmood ee xabad joojinta kumeel gaarka ahayd ee lagu soo heshiiyey. inkastoo dhowr jeer nagta la iska saaray laakiin xabad joojinta xoogaa sibay u shaqaysaa la leeyahay. marka laakiin wayba dhammaatay, shalay iyo dhammaataa la leeyahay. 60 maalmood khalaas waa ku daayeen. hadda wax xabad joojina u dhaxeeya Mareykan iyo Iiraan oo heshiisa oo kala celinaya ma jiro. nin walba awoodiisa la waayo, laakiin waxaa lagu kala joogaa nin walba waa la isbartay, nin walba meeshiisu fadhiyaa. marka afhayeenka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa saakay shir jaraa'id la soo kalahay oo qabtay. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa Al Jazeera qoraysaa afhayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxa uu sameeyay hadal ayuu soo saaray sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iiraan ee la yiraahdo Tasniim. waxa uu yidhi afhayeenku hadal weyn oo ah wadada kaliya ee u furan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waa inuu ictiraafaa guuldarrada ka soo gaartay dagaalkii uu nala galay, sidoo kalena uu fuliyaa shuruudda Iiraan sida uu hadalka u dhigay afhayeenka. wuxuu dhanka kale sheegay oo uu ku celiyay dhowr jeer waliba in arinta muxaadathadka ama wada hadallada sirta ee la leeyahay
waxay dhex mareen Trump iyo ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan wuxuu yiri arinkaasu ma aha mid jira oo wax ka jira ma jiraan mana jiraan wada hadallo daaha gadaashiisa oo dhex maray Trump iyo madaxda ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan wax dhex maray ma jiraan way marka arikaas marka ninkan qodobadaas muhiimka ayuu ka hadlaalay wuxuu leeyahay ina i'tiraaftid qiratid الهزيمة قول ضر إنا قرتد ويقول ترامو ما الآن كغير إيران علن عتها قاعدة كانها قاعدة محا قاعدة نوابا كتشبينا اللي دقال كيف قاعدة علي هذا تورها يسوس وحده مركا نكا شركة رايدو ساكي قبطي isagoo u jawaabaya hadalladii Trump ka soo yeerayay saacadihii la soo dhaafay dhanka kale war cajiib ah soo baxay oo siyaabo kala duwan saaka looga hadlayo dhawaan waxay ahayd markii la yiri diyaarada droonisa ayaa lagu weeraray xafiiska ninka madaxda u ah maamulka Kurdistan ta Iraq ninka la yiraahdo Barzani ninkan waa ninka warbaahinta Mareykanku ay soo dusiyeen oo yiraahdeen waa ninka Trump uu la hadlay uu yiri ila hadal si ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan maadaama labada dhanba isagoo xiriir fiican la leeyahay ninkii marka gurigiisa ayaa diyaarada droonisa lagu weeraray markiiba marka Iiraan loo saaray Iiraan waxay tiri ninkan anaga waxba nagalama dhaxayaan maxaa u weerarayna gurigiisa cidda nabadda diidan wada xaajood kastoo la sheega run ha ahaado ama been ha ahaato diidan waa Israa'iil yiraahdo Israa'iil ha laga baaray sheekadan sheekadii marka waa soo way qasmatay haddaba markaa tuso wararkii ugu dambeeyay Iiraan waxay beenisay inay bartilmaameysatay xafiiska ninka la yiraahdo Barzani haddaba warar kala duwan ayaa la isla dhaxmarayay oo markaa ku saabsan sheekadan saacadihii la soo dhaafay in la beegsaday oo la weeraray xarunta madaxa ra'iisul wasaaraha gobolka Kurdistan dalkaasi Iraq ninka la yiraahdo Masruur al-Barzani haddaba waxaa la sheegay in diyaarada droonisa oo Iiraan ay samaysay lagu weeraray halkaas laakiin Iiraan saakay si kulul ayay u beenisay waxayna sheegtay inaanay wax shaqo ah ku lahayn weerarka la sheegayo in lagu qaaday Barzani xaruntiisa marka Barzanigu waa ninka maamul goboleedkan dhankan madaxda ka waxaa la yiraahdaa ninka xukuumadda madaxda u ah Kurdistan ta Iraq waqooyiga Iraq waxaa ka dhisan maamul goboleed Kurdistan la yiraahdo oo halkaas ayuu ka dhisan yahay oo dadka Kurdiyiinta ayaa leh maamulkaas marka taariikh ahaan dadka intiisa badan way la socdaan inta aan la socdeen waagii Saddam Hussein lala dagaalamaya waxa la yiri dadka Kurdiyiinta Saddam dawladiisu kiimika ku buufis kiimika markay ku buufisay dad badan oo Kurdish dhintay kadib marka waxaa la sameeyay zone ka mamnuuca inay Iraq soo gasho oo wadamada reer galbeedka kadibna maamul loo sameeyay ilaa hadda dawladda Iraq markii Saddam meesha laga saaray xataa maamulkeena ku adkaysanayna yiraahdeen marka nimankaas marka waa maamul goboleed gooni u baxsan oo Kurdiyiintu ay leeyihiin marka ninkaasu waxa leeyahay xafiiskiisa la weeraray Iiraan waxay tiri anaga maaha ee qoladaas koofiyad yarta ha laga baaray yiraahdeen anaga shaqo kuma leeyahay marka diyaarada drone oo Iiraan leedahay kan waa waxa shaqo ma kulina yiraahdeen hawshaas marka halkaas iyaduna maraysa saakay mar kale weerar ayaa ka dhacay Hormuz waatii xalay aanu idin sheegnay markab Imaaraad ku leeyahay in Iiraan ay ku qabteen jasiiradda la Qasham sida ay sheegtay telefishinka RT uu sheegay isagoo soo xiganay wakaaladda wararka ee Faris ee wadanka Iiraan xalay sheekadaas meesha si joogtay Imaaraadkii saakay waa raadiyay wax wara oo markabkan laga haysto uu ka soo saaray maba arkin basaakay wax cusub oo Imaaraadku ka soo saaray markabka maark laakiin hadda waxa soo baxay war kale oo la leeyahay hay-adda dhanka badaha wararkooda qaabilsan ee Britain waxay leedahay markab Hormuz isku dayay inuu maro agantaal ugu dhuftay yaa iskale wali lama sheegin markabkaas haddaba aad tusoo wararkii ugu dambeeyay waxaa la sheegayaa in qayladaan ay ka soo yeertay kadib markii markab uu ku dhacay gantaal
hormus isagoo maraya. hay-adda howlgallada ganacsiga badda ee dalka Britain ayaa waxay sheegtay inay soo gaareen qayladhaan kaasoo ku saabsan marinbiyoodka hormus. haddaba markabka ayaa waxaa la sheegay inuu la kulmay dhaawac ka soo gaaray gantaalka lala helay iyadoo aan la garanayn gantaalka cidda ku dhufatay xilli la sheegay inuu marinbiyoodka hormus ka baxayay. oo markaa hujuumkan ama weerarkan ayaa la sheegay inuu khasaare gaarsiiyey sida mas-uuliyiinta markabku ay sheegeen qolka uu ku jiro matoorka markabka, waxaana la sheegay in qof ka mid ah shaqaalaha markabkaasi uu isaguna dhaawacmay. marka ilaa hadda markabkan isagana lama sheegin calanka uu sitay, cidda iskale, shirkadda iskale, waxaasoo dhan faahfaahin lagama hayo. laakiin marka hore akhbaarta ugu horreysa waaye tan oo la leeyahay markabkaas ayaa dhibaato gaartay isagoo hormus ku sugan. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markasu daaru taqwa waxaa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah. maadooyinkaad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, higaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadin dugsiga markasu daaru taqwa. waxaa waalidiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Ingiriiska iyo guud ahaan caalamka laydin hayaa fariin ka timid maamulka iyo macallimiinta iskuulka Beacon International Academy. iskuulkan waxa uu ka saacidayaa caruurta waxbarashada International GCSE-ga si ay caruurta u helaan aqoon aad u sareysa isla markaana ay ugu biiraan jaamacadaha caalamiga. waxay sidoo kale Beacon International Academy idin diyaariyeen in caruurta laga dhisi doono akhlaaqda dhinaca diinta Islaamka iyagoo la bari doono Quraanka, luqadda Carabiga, axaadiista iyo weliba af Soomaaliga. fadlan la xiriir website-ka, telefoonka wac, isna diiwaangeli si caruurtaadu ay uga faa'iidaystaan fursaddan iyagoo jooga gurigooda. online ayay ku baran karaan, macallimiin khibrad leh ayaa laydin diyaariyey. sidoo kale waxaa la soo xiriiri kara dadka Soomaalida ah ee meel kasta ee dunida jooga oo iyaguna doonaya inay aqoontooda luqadda ay sare u qaadaan. la xiriir oo hadda wac, isna diiwaangeli Beacon International Academy. marka qaybta ugu dambaysa ee barnaamijkan waxaynu ku soo qaadanaynaa Turkiga ayaa hadda wuxuu isku dayayaa in bal wada xaajoodyadii iyo wada hadalkii la soo celiyo, maadaama 60kii maalmood ee xabad joojintii kumeel gaarka ahayd ay dhammaatay, wax kastana ay suuragal tahay inuu Turkigu marka toos isagu u soo dhex galo iyadoo Pakistan iyo howlaheedii ay socdeen isaguna uu hawl kale bilaabo oo yiraahdo wada hadallada iyo wada xaajoodka soo laabta, xabad joojin kale isla gaara, hawshu sidan bal ha ku sii socoto, dagaal kale hadda annagu tabar uma hayno gobolka haddaan nahay. marka shalay waxaa telefoonka ku wada hadlay wasiiru khaarijiyaha Turkiga iyo midka Iiraan. marka wasiirada arrimaha dibadda waxay ka wada hadleen kan Turkiga ayaa dadka wacay, Araqji ayuu wacay, wuxuu kala hadlayay sidii bal wada xaajoodkii loogu soo noqon lahaa, xabad joojintii waqtigeediina loo dheereen lahaa. haddaba markaa arrinkaas markii ay nimankaasu wada hadleen, dhanka kale Trump ayaa isaguna waxaa la hadlay ninka la yidhaahdo Erdogan. marka dhankan Iiraan waxaa loo diray wasiiru khaarijiyaha Hakan Fidan ninka la yidhaahdo, dhankan Trumpna waxaa loo diray Erdogan inuu la hadlo si markaa xabad joojintii bal waqti kale ugu daraano hawshii loo socodsiiyo. haddaba aan idin tuso Al Jazeera saaka waxay leedahay xiriir ayaa dhex maray Trump iyo Erdogan sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga ayaa telefoonka kula hadlay madaxweyne Donald Trump iyagoo marka hore ka wada hadlay cilaaqaadka ama xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyo dagaalada ka socda Iiraan iyo Gaza iyo heshiiskii Makka ee ay isbaahaysiga ku samaysteen Turkiga, Pakistan iyo Sacuudiga. haddaba Erdogan wuxuu gaarsiiyey Trump ahmiyadda ay leedahay in la sii wado wada xaajoodkii kala dhaxeeyay Iiraan, waxaana ay Turkigu sheegeen inay diyaar u yihiin inay si buuxda uga qayb qaataan nabadda iyo isu soo dhaweynta dhinacyada. marka
turkigu wuxuu dareensan yahay maadaama 60kii maalmood ee xabad joojintu ay dhammaatay in wax walba ay dhici karaan macnaha markii hore xabad joojintaasu ha iska aato mid tacbaan oo la iska dhadhax gashado jugta la iska geliyo laakiin waxa uun yaalay wax uun lagu heshiiyay laakiin hadda wixii xataa meesha way ka baxeen marka Erdogan wuxuu leeyahay diyaar aan u nahay inaan ka qayb qaadano inaan idinku siin soo dhaweyno oo aynaan idinku sii deynin Pakistan iyo Qatar iyo kaliya inaan isku sii deyno anaga laftirkeenu diyaar aan u nahay markan xoog inaan u soo galno marka saasay arinku maraya wadahadal wararkaas ayaa ugu waaweynaa xaaladda bariga dhexe oo aan barnaamijyadeena aad uga hadalno inta ayaynu markaa kusoo gabagabaynaynaa wixii akhbaaraad iyo warar soo kordha hadii alla idmo barnaamijyadayda kale ayaan idinkula socodsiin doonaa inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo